بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد ومركل البرنامج كوع فكر كاجا waxaa jirta wax la yiraahdo rhesus factor ama wax la yiraahdo r factor ama rhesus factor haddaba haweeneyda markay uurka leedahay ama markay uur yeelato waxaa wanaagsan waa inay ogaataa yani rhesus factorka ma haysata oo positive ma tahay mise ma haysatid oo negative ayaa tahay sababtoo ah taasi waxay kaa badbaadin kartaa dhibaato kugu iman lahayd baybigaaga caloosha ku jira haddaba su-aasha isweydiinta badan waxay tahay sideeba waa maxay rhesus factor ama f factor waa maxay haddaba sida ula socoto barnaamijyada ka baxa kobci fikirkaaga oo mararka qaar noqon karaya barnaamijyo ama la talin xagga caafimaadka ah sidoo kale barnaamijyo kale waxaa ka bixi karaya mararka qaar noqon karaya waxyaalo kobcinaya fikirkaaga si aad ula socoto barnaamijyada waxaad u baahan tahay channelka inaad subscribe samayso iyo inaad la share garayso asxaabtaada waa hubaal inay wax badan ka faa'iidi doonaan haddaba haweeneyda marka uurka leedahay waxaa laga yaabaa hooyadii inay tahay negative baybiga calooshaada ku jirin waxaa laga yaabaa inuu positive yahay uu haysto rhesus factorka inuu haysto haddaba markii ugu horeysa marka uurka leedahay inta lagu guda jiro marka aad foolanayso ama marka aad dhalayso waxaa dhici karta dhiigga hooyada ka imanayay iyo dhiigga baybiga ka imanayay inay isku qasmaan dabeeta markiiba difaaci jirka ama immune systemki wuxuu soo saarayaa protein la yidhaahdo antibody waa difaaca jirka ay ka qayb qaataa yani uurkaaga hore markii aad dhasho wax problema ma keeno inta badan laakiin second pregnancy marka aad marayso marka labaad aad dhalayso ama marka labaad aad uur yeelato waxaa laga yaabaa baybigaagii inuu yahay positive maamadiina inay tahay negative inaan haysan rhesus factorka inaynan haysan haddaba proteinkii antibodygii hore loo sameeyey uurkii hore loo sameeyey ayaa wuxuu ka gudbayaa mandheerta wuxuuna beegsanayaa oo burburinayaa unugyada dhiigga cas ee baybiga caloosha ku jiro ayuu baabi'inayaa taasina waxaa la yidhaahdaa erythroplastosis fetalis ama hemolytic anemia ay sababaysaa taasi oo ah dhiig yaraan ba-an ayaa waxaa ku dhacaysa canugii caloosha ku jira sababtoo ah dhiiggiisii waa la baabi'iyey waa la burburiyey antibodygaas ayaa burburiyey haddaba sidee baa looga hortegi karayaa waa easy markii kugu horeysa uur yeelato la xiriir xarunta caafimaadka isku day inaad ogaato inaad rhesus factorka ama r factorka inaad haysato oo aad positive tahay ama inaadan haysan oo negative aad tahay haddii aad positive tahay wax dheeraada uma baahnid halkaa ayaa kugu dambeysa haddii aad negative tahay waxaad u baahan tahay mar labaad wiigga 20aad inaad tijaabiso mar labaad iyo in antibody proteinka u sameysmay uu kugu jiro jirkaaga inuu ku jiro mar labaad wiigga 28aad iyo 30aad inta udhaxaysa maadaama aadan haysanin rhesus factorka aadan haysanin waxaad u baahan tahay inaad qaadato irbad antidii immunoglobulin la yiraahdo 300 oo micrograma in aad qaadato sidoo kale marka aad dhasho oo la ogaado inuu baybigaaga rhesus factorka inuu positive yahay uu haysto sidoo kale waxaa u baahan tahay 300 oo micrograma antidii immunoglobulin baa mar kale u baahan tahay qaadanaysaa easy haddii kaleeto waxaad soo wajahaysa khatar fara badan ee ku iman karta inankaaga ama baybigaaga caloosha ku jira taas oo dhibaato fara badan u geysan karta insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu